xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga mudane maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo dhammaan wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska ayaa iyagu soo dhaweeyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga isla markaana kula dardaarmay inuu shaqadiisa u guto si daacad ah. aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo ka kooban macnaha guddiga qabanqaabada dadkan arkaysaan oo xafladan quruxda badan wasiirka baalka u sameeyay wasiir nuux wasiirka isboortiga waxaan idin leenahay xafladan baalka waa idigu hambalyeynayna dhammaan kasoo qayb galka nagala soo qayb gasheen wasiirka waa hambalyeynayaa hambalya soo dhawow waxa ku sugayna waa dhalinyaradii waa wasiir sports waxa ku sugaya Soomaali oo idil meel kasto joogto marka wax qabad degdeg marka maxay ahaa dhalinyarada siiba qaasatan in maxay ahaa wax u qabatida sugina insha Allah taala hadii la yiraahdo anigoo ku hadlaaya dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah ee loogu talagalay wasiirka Soomaaliyeed wasiirka sportiga iyo dhalinyarada maxamed cabdulaahi xasan nuux marka hore hilmaan hadal kuma jiro waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynaa dawladda oo dhan oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Umar Abdirashiid Cali Sharmaarke oo soo dhisay dawlad xukuumad lana ansixiyay waana ku faraxsanahay haddii aan Soomaali nahayna waxaan leenahay tii hagaagto loo aayo dalka wax u tarto inuu Ilaahay ka dhigo waxa codsi ama tala ahaan aan u leeyahay wasiirka yani sportska waxa kaliya isu keena ummadda Soomaaliyeed oo qabyaalada iyo wax walba kullu u diiday sababtoo ah garoonka balooniga maanta waa lagu ciyaaraya marka loo am sportska waa lagu ciyaaraya meel walba ha ahaatee dad isku reero ma tagaan waxa taga Soomaaliya oo dhan aa wada tagto ma aragtay maxaan ilaha mid meeshaas lagu xifaaltano oo lagu kaftamo oo lagu sheekaysto oo nin walba ta guri dad ka soo wada baxay 10 qaybood kala maxamed waxa loo dhibay hawl adag oo ah dhalinyaro iyo sports aad u muhiim ah bulshada muhiim ku ah dawladda muhiim u ah waayo Soomaaliya markaad hadda fiirisid 75% hadii saga badnaa waa dhalinyaro dadkaas mas'uuliyadoodan waxay saaran tahay wasiirka dhalinyarada waxaan u soo jeedinaa wasiirka inuu sameeyo sida hadda gabadhii ay maartay ay sheegtay waxa weeye dhalinyaradu waxa weeye wax kaliya baabasan maanta wadanka waxa weeye waa dhalinyarada waa tiirka ummadda Soomaaliyeed wasiirka cusub waxaan ku dardaarmayaa maadaama uu yahay shaqada loo dhiibay tahay dhalinyarada iyo sportska magacii dhalinyarada ku hadlaynaa mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa shaqadaada ugu horeysa tiirarkaaga siyaasadda in aad ku bilowdo midowga dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan oo aad dhistaa dallad ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku mideysan yihiin kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogana isku xirto waxaan rabaa inaan iraahdo waa soo dhaweynaa wasiirkii waa hadal wanaagsan laakiin ma nahay anagu dad wanaagsan oo wasiirka garab istaaga oo waxa uu u baahan yahay maalinta uu soo booqdo si kara oo oro kara wixii aad nooga baahnayd ee sporti waa naga kan sababtoo waxa leeyahay ninka wanaagsan wuxuu ka yimaadaa bulsho wanaagsan wasiir kasta oo la soo magacaabo si kasta uu wanaagsan yahay haddaan bulshadeena Soomaaliyeed aan xunahay ma wanaagsanaanayo marka hore waa inaan isku sheegnaa inaynu nahay bulsho wanaagsan oo dalkeeda iyo dadkeeda jecel si aan u hormarno waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga maxamed cabdulaahi xasan nuux waxaan kula dardaarmayaa kaliya aniga isboortiga maanta waxa uu marayaa in loo shaqeeyo laakiin in laga shaqeysta waxa meena xilligeedii la soo dhaafay waxaan aad iyo aad kula dardaarmayaa isboortiga maanta in wax badan laga bedelo oo dadka dhan ay wada shaqeeyaan Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.